Yo, mar kale iyo muuqaal kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Muqaam channel. Waa aniga Wasiir Farxaan. Mar kale iyo muuqaal kale waxaan taaganahay bartamaha xaafad Islii. Waxaan rabaa inaan su'aalo weydiiyo dadka ku dhaqan xaafad Islii. Waxa kale oo rabaa inaan barnaamijkii aad nooga barateen ama aan bilownay asna aan ka qayb qaadano insha Allah. Isla socod wanaagsan. Caafi nisna saamax walaalka ama walaasha. isla socod wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhaw Muqaam channel magacaaga. magacayga waxaa la Ruwaydo. Ruwayda sanadkaad inaga tagay 2021 maxaa xasuus gaar ah kugu reebay? abaaraha wadooyinka la xirxiray corona wax badan adii oo sheeg karin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhaw Muqaam channel magacaaga. xalla Nuur Sal Jamac. Nuur su'aasha goodan ku weydiinay waxa waaye sanadkii tagay 2021 maxaa xasuus ay kaaga tagay ama aad haysataa? wallaahi waxyaalo fara badan oo xusuus igu tagay waa jiraan. maxaa ka mid ah noo taabaali la wado? horta waa jiraan arrimahan loof korta oo isku yar fiicneen xoogaa qof ay xiriir lahaa halkan laakiin suuri waa ka halkan ma joogo xamar buu jiraa iyo caasimadda Soomaaliya marka muddo 2 sano waxaan wada soconay 2019 bas baranay marka waxay ku tiri maan lawito xoogaa isku yar dhacna marka waxay tiri macnaa kula socod camal 2 sano macnaa iga dhamo camal cirka ay fiirso marka aniga waxay la noqon arrin la yaab leh marka saan ma fiicno macnaadii labada ma garanaysaa ninka ragga macnaa badan qabi iyo qawi isku baahin moogtay marka arrintaas la soo kulmay okay waxaa kale ku weydiinayaa su'aasha xigto gabar qurba joog iyo gabar dal joog keebaa jeclaan lahayd? gabarta waxaan jeclaan dal joogta ta qurba joogta noo nacbayba. Okay laba siyaabood aad ku nacday qurba joogta noo sheeg. naagta qurbaha ka imaatay lacag bay sidataa Sooma lacagtaas uba aragta ama ogi loof xaqiis waxba kama ah marka saasan ku jeclaaday. Okay dal joogta waxa ku jeclaatay? dal joogtu laba loo kala saari tuna way fiican tahay tuna way xun tahay oo shanta afar ilaa ma simin marka mid koobaad waxay tahay qofka bini'aadanka aan sinnaynba Soomaa dumarkii iyo rag ma sinno waa saas kale marka tusaale waxay tahay kuwa horta waxaa jira lacag raadis oo bibi cash la dhaho inaad maqashay kala waaqaale wala kuwaas way jiraan kuwa kale oo macnaa bibi loof la dhaho ay electricooda mustaqbalkii iyo guurkii iyo aayihii nolosha doonayna way jiraan marka saas ku jira. Okay Nuur su'aasha saddexaad aan ku weydiinay waxa waaye gabar qaab ahaan yaa dooran lahayd ma tilmaami kartaa qaabka ugu jeceshay gabar inaad ka doorato? miyaan waxaan jeclaan lahaa gabadh Itaal oo lahaa taarto haddii qalabsanaanta waa ku qaadanaa haddii buurnaanta waa ku qaadanaa laakiin buurnaanta saa'idka ah oo hilibka saa'idka aniga waa ka didaaba oo ma jecel sideedaba marka saas. Okay gabdho waxaa jira kaniini la qabo isku booriyay kuwa barada weynaystay kuwa furriyaha durtay weynaystay ma gabdhaas maxaad fikrad aad ka aaminsan tahay? horta waxaas waa dhaqan xumo qofka bini'aadankana inuu jirka Ilaahay iyo suu sameeyay inuu bedelo aad bay u xunta waana qalad aad u weyn noloshoodana ma garanaysaa meel xun bay ku damaynaysaa dadka marka noocaas ma garanaysaa aanu ma doonayo kuwaas. Okay hal ilaa asxaabtu ku daawanaysa maxaa leedahay? waa salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaaga? maxamed Ibrahim Jaafar. maxamed kusoo dhawo Muqaam channel sanadii hadda tagay 2021 maxaa xasuus ah kugu reebay? wallaahi bilaa wax xasuus badan ay ugu reebay. maxaa ka mid ah hal ilaa nooga taabay? wallaahi bilaa jacayl wax la dhahayo ku hangowday oo ma isku dhacdeen si camal? wallaahi bilaa ilaa hadda waa isku dhacnay mar waa isku dhacnay. maxamed su'aasha labaad aan ku weydiinay waxa waaye gabar dal joog iyo gabar qurba joog ah keebaa jeclaan inaad guursato? wallaahi bilaa gabar qurba joog. maxaa ku jeclaatay sabab? waxaan ku jeclaaday wax fahankeedo iyo يعني inay ilbax tahay oo dad meel badan soo martay inay ilbax tahay sidaas aan ku jeclaaday gabdhaha
qaab ahaankeed jeclaan lahayd inaad ka guursatay inoo tilmaan gabdhaha waxaan jeclaan lahay midda oo caatada oo cad maasha Allah gabdhaha way isbuuriyaan kaniini laqaan waxyaabo sameeyaan adiga maxaad kula talin lahayd ma kuwa kaniinida laqaa taageeraysa mise wax kale kula talinaysaa wallaahi kuwan kaniinada laqaaya ma taageersanay kuwan kale inta taageersay kaniina cabin oo caatada ilaahay u dhali oo kale taasaan jeclahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawo muqaam janal magacaaga muna muna su-aasha koowaad ku weydiinaya waxaa waaye sanadkii 2021 tegey maxaa xasuus gaar ah kugu reebay wallaahi xasuuso badan oo igu dhaafeen maxaa ka mid ah maxaa ka mid wallaahi ma soo koobi karo laakiin waxyaalo badan aa ka mid okay muna ragga Soomaaliyeed waa dooqay badan yihiin masna waa maarteen iskugu jiraan dooqay ugu jeclaan lahayd adee sheebahan oo tilmaan wallaahi ani hadda waan haystaa marka ma basiita tilmaami kara wax kale ma basiita tilmaami kara kayga inaan tilmaamana ma sheegin adoo haysata tilmaan laakiin nooc uu yaa jeclaan ani waxaan jeclahay ninka inuu dheerahay oo aad u dheerana dhaxdhaxda u yahay inuu cayilneen oo dhaxdhaxdu iska yahay adii caata zaidna inuu ahayn oo qiyaas inuu madow yahay kalarka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawo muqaam janal magacaaga magacay waxaa la dhahaa Harun Macruuf waxaan ku weydiinayaa sanadii hadda 2021 hadda naga tagay maxaa xasuus gaar ah uu kugu reebay wallaahi sanadkii tagay maasha Allah sanad fiican waay laakiin maadaama bini aadan ana moogta sanadkii hore iyo sanadkan waa ay kala yihiin laakiin sanadkan hadda wali ma gelin haddaan galnay laakiin sanadkii hore waxyaalo badan waxaa jira oo hadii iska corona ay jiri hadii hadda corona loo waxaana soo maray waxa oo jilaal awaarana soo martay haddana gadaashan waxaa noo dambeysay laakiin roob alxamdulillah waa xagga ilaahay u noqonayna maasha Allah Harun su-aasha xigto gabdhaha durto barida ama faruurta ama kaniiniga kubciyaha laqaan ma ku taageeraysaa oo sii wada maalada misna waxaad leedahay sidee adiga fikrad ahaantaada maxaa ka leedahay wallahi anina yahay gabdhahaas ma ku taageeray waxaa yeelay Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii gabdhaha aad u halaabeen gabdha waxaa jiraan oo kaniinka iska laqaayeen laakiin futada weynaysanayeen waa jiraan Soomaa marka qaar waxaa jira ayagana afkan waxa marsanayeen oo rang gudan carm marsanayeen ayagana waa jiraan anina kuma taageeray qaar waxaa jiraan oo kaniin waxaa jiraan ayagana isla laqaayeen laakiin oo isku roqonayeen amal isku caatoonayeen wallahi ana hadda dad islaana moogta wallahi ana hadda kuma taageeray arrintaas waa arrin xun oo arrin qalad way Harun su-aasha xigta waxaa waaye gabar qurba joog ama gabar dal joog keebaad jeclaan inaad guursato gabar oo in joogto iyo gabar oo baadiyaha Soomaha gabar dal joog oo dalka joogto iyo gabar qurba joog oo qurbaha ku maqan maasha Allah gabar oo qurbaha joogto ma guursadeen laakiin gabarta oo dalka joogto taasaan guursan lahay ana hadii aad taleedahay gabartaas maasha Allah gabar fiican gabartaas okay sababaha waxa ma naga taaban kartaa waxba kama taaban kara laakiin hadii la fiiriyo oo xagga dhaqanka laga fiiriyo gabdhaha kabtaas tageen iyo kuwan inta kala yihiin maasha Allah gabdhaha dalka joogan dalkii hooyo ku dhasheen maasha Allah gabdha fiican oo gabdha wanaagsan oo aabahood laga doonayo markii la guursanayo laakiin gabdhaas waxa way yani 5 camal ilaa 10 camal ay saaxiib leeyihiin ay leeyihiin marka lama fahmi karo maasha Allah gabar qaab ahaan Harun gabar qaab ahaan keebaad jeclaan lahayd misna noo tilmaanta aad jeclaan lahayd gabar wallahi maadaama aan gaabanayo maadaama dooqay maasha Allah ani waxaan jeclaan lahay gabar oo dheer aad oona dheereen oona gaabnayn laakiin dhaxdhaxaad camal midaasaan jeclaan lahay oona dheereen laakiin aad sayd noo dhumneen oo kaadkaatay maar taasaan jeclaan lahay ani dooqay Harun asxaabtu ku daawanaysa maxaa leedahay hal iyo labo kuwa ku garanay iyo kuwa ku garanayn inta way ku daawan doonaan maasha Allah asxaabta idaabanayaan waxaan leeyahay khayr Allah siiyo ayagana waxaan leeyahay ku soo dhawaada insha Allah in TV-da magacna muqaam janna maasha Allah ku soo dhawaadaan aad u jeclaan lahay maasha Allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku soo dhawo muqaam janna magacaaga magacay waxa waay booji waa la dhahaa waxa waay wiil garaanahay meeshaan ku imaade mooyaal waay su-aasha koowaad aan ku weydiinayay waxaa waaye sanadkii 2021 ka tagay maxaa xasuus gaar ah kugu lahaa aad haystaa wallaahi wax badana iga laabe wax badana iga hagaajifame 2021 waa tagaad hadda waxaa joognaa 2022 wax gaar ani igi xasuuso had ma aqaano laakiin 2022 naag ani jeclaada jirto magaceedu waxaa Fayza la dhahaa meeshaan joogto Mandheera waay hadda waxa waay su'aalka aad weydii karto maxaa waay
su-aasha labada ku weydiinaya waxaa waaye qof qurba joog oo aad dalka ka maqan out ah iyo qof daljoog ah oo dalka jooga keebaa jeclaan lahayd inaad guursato kee meeshaan joogaa maxaa ku dooratay waxaa ku doortay meeshaan waa meel fiican meeshaan waxaa ku jirtaa diinta islaamka ku jirtaa saasaa ku doortay haddaan ku weydiinaya waxaa waaye nin daljoog ah nin qurba joog ah keebaa jeclaan lahayd nin dalka joogaa jeclaan lahaa ya nin ila joogaan jeclaan lahaa okay sababaha ku dooratay min hal iyo laba nooga taabo sabab la'aan laakiin waa iska jeclaa hamigeyga waa nin qurbaa igu jiro igama warqabo waxaan ahay wax kale laakiin nin ila joogo wax kastoo ila qaybsanaa okay nimanka bal noo tilmaam ninkee ugu jeclaan lahayd sida uu qaabka ku dooran lahayd qaabkay ku dooran lahayd adii noomala caadi waxaa soo baxday sanadan waxaa soo baxday rag iscadaynayay marka dumarka waa la gartay oo waa gaar laakiin rag iscadaynaya soo baxay marka adiga maxaad ka leedahay nin buntuucaddii baddaasaan ka galaa laakiin ninka madow aan dooran laane maxaa ku dooratay because ninka sacdeeyey asaga camal naag camal uu dhaqmaa uu sacdeeyey sida naagii camal laakiin ninka ragga waa ninka madow dadka ku daawana hal ilaa maxaa leedahay waa ku mahadsantihiin maadaama fideogan soo gaara